hawlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulan habboon dawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Tixraaca wararka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan shashada TV-ga Somali News xaruntiisa magaalada Muqdisho. barnaamijkana laba waxa ay dala socodsiiyaan aniga Asraad Maxamed Khayre isla Soomaali. barnaamijka waxaanu mar waliba uga hadlanaa arrimaha ku qotoma guud ahaan xaaladda dalka uu marayo markana waxaa miiska noo saaran arrimahaasi ku geedaaman doorashooyinka iyo shirkan Muqdisho ugu furmay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. waxaana barnaamijka igu madalsan isla markaana aan su'aalo dhowr ah oo arrimahaasi ku qotoma aan wax ka weydiin doona xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan marka ugu horeysa ku soo dhawo TV-ga Somali News iyo barnaamijka Tixraaca wararka. waa ku dhawaada waa mahadsantahay soo dhawaada kulay barnaamijka idinka cadaadaynaya waa idin soo dhaweynaa aniga inta waa tahay waa mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad nooga ajiibtay inaan waraysigan kula yeelano. waxaan rabaa inaan su'aal ka weydiiyo marka ugu horeyso shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uga furmay Muqdisho maxaa laga filan karaa ayaad isleedahay? waa mahadsan tahay shirka intaan kala socdo muddo badan ayuu baaqday dileyd badan dhacay waxay ahayd shir in lagu saxiixo la rabay heshiiskii baydhabo 16 Febraayo gobol xaarkii wasiiradii ay soo dirsadeen ku saabsanaa heshiiskii 17 September oo ay wax ka soo noqdeen oo baydhabo lagu soo qaabeeyay ayay ahayd in lagu saxiixo ceremony loo sameeyo saxiix loo sameeyo xaflad loo sameeyo xaflada yaqaaniin dadka dabadeedna lagu dhaqaaqo qodobada ku qoran oo fulin u baahan marka dib u dhaca yimid kala shaki badanaa yimid laba dowlad goboleed oo awalba diidaneed ayaa xalna iska gashay xamar ka shakiyay in lagu dilaayo sheegeen hadda sida aan maqlay nimankii ay martida safaaradaha galeen meel safaaradaha ayay galeen ku hooyanayeen safaaradihii ayaa soo gardaadiyay oo keenay xaruntii shirka maanta ayuu shirkaas furmay wax ka soo bixi doona Allahu a'lam laakiin waxaan ka rajaynaynaa khayr. waa tahay marar hore waxaa jira kulamo ay yeesheen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka dhamaantoodna waxay ku soo idlaadeen fashil iyo in la isku fahmi waayo ma islihi kartaa kan wuxuu daba socdaa kuwaas? wallaahi wuxuu ahaan doonaa Ilaah baa ku caalima laakiin shirarka aad sheegaysid kii dhuusamareeb waa lagu guuleystay qodob ay ku heshiiyeen dhuusamareeb 2 waa lagu heshiiyey qodob ay ka soo saareen dhamaystirkeedii magaalada Muqdisho heshiis leeyahay heshiiskii 17 September leeyahay oo baarlamaanka Soomaaliyeed bay u soo gudbiyeen oo ay saxiixeen heshiis waxa loo saxiixaa sidiisaba inaan laga bixin heshiiskii ay saxiixeen 17 September baarlamaanka ay u soo gudbiyeen baarlamaanka hal qodob kama bedelin ilaa aan ku darnaa qodob dastuuri ah oo farqad aan u yeelnay oo ah baarlamaankan waxa bedelaya baarlamaan la soo doorto oo aan ku darnay labada aqal oo isla fadhiya qodobkaas qodobka 6aad ee dastuurka ayaa farqada saddexaad aan ugu dhignay marka tiya hadda lagu wada joogaa ayuu markii aad fiirisid waxay rabeen in wadanka oo vacuum uu yimaado banaanaansho xileed inay timaado oo dalkan dawlad la'aan oo ku soo dhaco oo guddi iyo wax noocaas dalka loo dhiibo
ayay laba dowlad goboleed aada u soo buushgareeyeen waa puntland iyo jubbaland tiina dee qodobkaasaan ugu hortagnay oo maalintii sharciga aanu ansixinayni de annagu ilaahay un baa nagu toosiyey ma ogeyn inay khiyaanadan ay wataan ma ogeyn runtii waxaa sidii bil cibaado camal ay u dhowreen 8 February oo farmaajo waqtiga ka dhamaanay 8 February hala gaarsiiyo 8 February hala gaarsiiyo 8 February hadii bil cibaado ma aha waa bil oo madaxweynaha xilkiisa uu dhamaanay annagana si ayna xil dhamaashadaas waqtigeeda ayna u dhicin qodob dastuuri ah aan wax ka bedelin labadii aqaloo isla fadhiyo labada aqaloo isla fadhiyo un baa dastuurka wax ka bedeli kara qodob saddexaad farqad saddexaad aan ku darnay oo aan leenahay baarlamaankan waxaa bedelaya baarlamaan la soo doortay markaas waqtigiisa ayuu dhamaanayaa inta ka horeysa awoodiisa sidiisii u haysanayaa farqada labaad ee qodobkaasna waxaa leeyahay hay-adaha dowladda sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ilaa madaxweyne lasoo doorto uu ku yimaado asaas xilka sii haynaya awoodiisana si buuxda u leeyahay marka taas lagu wada joogaa hadda oo dowlad lagu wada yahay marka laakiin annaga markii aan samaynaynay nimankan ma ogeyn inay rabeen in waqtiga ay lumiyaan kadibna ay dhahaan madaxweynaha iska tag inay dhahaan inay rabeen ma ogeyn annaga laakiin waxaan islahayn dal aada u nugulaanahay yaanan muxuu ahay vacuum imaan intii lasdaba socdo laakiin ta ka weynaaba jirtay marka oo nimankan u qarsaneed annagana ilaaha nagu hagaajiyey marka hadda taasaa laskula jiraa ayna ku heshiinin mala horta taas ayay idinka hoos bax fadhi aan lagu heshiin baydhaba xataa markii la tagay wasiiradooda waa kusoo heshiiyeen 17 September waa ku heshiiyeen maxaa keenay marka laakiin fulintii ayay balaayo ugu dhacday dad baa aaminsan farmaajo haddii doorashada asaga arbitri ka noqdo oo asaga dalka gaarsiiyo bari ma helaysin anigana waxaan aaminsanahay waxa la dooranayo maanta farmaajo maaha waxa la dooranayo musharax kale maaha lama gaarin wax la dooranayo horta waa xildhibaan xildhibaanka markii lasoo doorto kadib ayay musharaxiinta soo dalbanayeen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa in isdiiwaan gelin oo musharax madaxweyne aan noqdo markaasaa waxaa lagu xujeynaya in 20 xildhibaan ay u soo proposal garayso oo ay tiraahdo ninkan waa u qalmaa madaxweyne qodobka dastuurku ku qoran yahay marka kadib oo khidmadii muxuu ahaa iska bixiyo musharaxnimada oo iska bixiyo oo bangiga ku soo shubo oo shahaadada qaato markaas qofku horta musharax noqon karaa nimankan hadda isdabadudaayo oo musharaxiin waaye dhahayo oo axmedoobi iyo dani iyo hoosta ugu jiro oo aad moodaysid inay farmaajo ka carar ay yihiin aad moodaysid sax ma hadda musharaxiin ma shuruudihii inay buuxiyeen in kale yaa inay 20 xildhibaan oo soo propose garaysa oo heli doonay in kale yaa waa tahay iyagu waxay ku andacoonayaan dowladda ayaa iyadu maxay ahayd diidan inay doorasho qabato oo waxay leeyihiin shuruud walbo lagu xiray arrimaha doorashooyinka ama is-afgarad ayaa laga gaari lahayn arrimaha doorashooyinka ay leeyihiin iyagu intaas soo jeedin ma sax ma nimankan doorashada waxay ku diidan yihiin farmaajo intii madaxweyne yahay doorasho ma ayna rabin farmaajona meelna uma socdo waa nin doorasho ku yimid doorasho uu ku baxaa muhiim waxaa inay doorashada ayna delayed garaynin oo ay doorashada la qabto doorashada dowladda federaalka ma diidano dowladda federaalka waxaan ansixinay aan ogahay sharciga doorashooyinkan ansixinay oo doorasho toos ah oo xaliimo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay qabanayso oo doorasho toos oo qof kasta muwaadin oo Soomaaliyeed oo doonaya oo rabitaan gaar ay ka hayso inuu doorasho galo arrintii dowlad goboleedyada diiday waxay dhaheen doorasho dadbanaan rabnaa waa u yeelnay doorashadii dadbaneeda loo yeelay doorashadii dadbaneed waa hadda waxay diidayeen marka mid qaloocan may soo wadaan mid muxuu ahaay iyaga ay sidii rabaan ka yeelanayeen may soo wadaan laakiin mar walbo fiiri 40 iyo dhowr xildhibaanaa laga soo dooranaya Puntland waxaa soo dooranaya dadka reer Puntland 40 ilaa 50 ayaa laga soo dooranaya Jubbaland waxa soo dooranaya waa reer Jubbaland
waxa madaxweyne oo dhex fadhiyo madaxweynahan oo ay dhahayo waa ninkii odayga ahaa marka cabsida ay ka qabaan ayaan bagaranaynaa anigu doorashada waa xaqiiq inay iyaga cabsi ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada waxa la isku dayeen dhowr jeer oo hore in iyagu ay shir isugu yimaadaan oo wayna ka baaqsadeen oo ma aysan suurtagelin waqtigii looga talagalay inuu dhaco shirarkaasi hadda waxa ay isugu yimaadeen shir ay galwadeen ka tahay beesha caalamka maxaa xilligan ku soo beegay in masiir ummadda Soomaaliyeed ay leedahay la hoosgeeyo beesha caalamka ma la hoosgeynin yaan la qaldamin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa u yeeristii shanaad waayo inta aan la socdo oo u yeerayo oo shirkan isku baaqayo dabcan in nimankii beesha caalamka u tagayo hoos tagayo xalna ku teenrada galay inay muxuu ahay beesha caalamka tiri shirka taga Soomaaliya wax la qaybsada inay tiri waa biikama dhabcaan waayo inay imaadeen way diideen afartii maalmood oo shirka uu socdo saddex maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha iyo gobolka Banaadir ay joogeen inay imaadeen waa diideen hadda marka in xoogaa beesha caalamka ay soo canaanantay iyaga waa suurtagal laakiin su'aashaas waxa si habboon in la weydiiyo Dani iyo Axmed Madow waayo wax la soo canaantay waa iyaga watahay markaan arrintaas ka tagno golaha shacabka ayaan tagaynaa toddobaadkii aanu ka soo gudubnay golaha shacabka xarunta Villa Hargeysa waxa ka dhacay buuq aad u tiro badan xildhibaanada dhexdooda ayaa buuq xoog leh oo ka dhex jiray waxa jirta in xildhibaano loo ganaaxay sharciyad ceenkee ah ayaa loo maray arrintaasi mana is leedahay waa arrin caburin ah maya caburin maaha feeri xildhibaanada 275 markay baarlamaanka galayaan waa kala fikir duuyi adduunyadana waa sidaas oo baarlamaanada caalamka nala qabo ma jiro baarlamaan isku fikir ah mida maxaafada oo mucaaradka hadalkiisa macaan asna u ahayn mida mucaarad ah oo maxaafadka warka uu sheegay la qareer yahay mid baa meel laxa baarlamaanka sidiisaba waa kala aragti duwan maxaa lagu kala baxaa waxa lagu kala baxaa dooda la furo baarlamaanka ajenda uu leeyahay ajendaha la soo diray wuxuu ahaa coronavirus oo in laga doodayo wasiiradda caafimaadka imaanayso taqaatiir kale oo shibil ah oo cudurrada faafa aqoon u leh ay imaanayeen ayay ahayd marka waxay dhaheen xildhibaanaha waxaa soo joogsaday maya waxaan ajenda fiican ma aha kan wax kale ku hoos qarsan annaga de wax kale ku hoos qarsan uma jeedno ajenda waa ajendaha baarlamaanka laba nooc oo ku yimaada inuu baarlamaanka ka hoos dhasho oo qodobka xeer hoosaadka baarlamaanka qodobkiisa 25aad farqadiisa 3aad loo cuskudo oo dhahayo 10 xildhibaan ayaa ajendaha wax ka bedeli kara oo dhihi karo ajendahan ha laga saaro ajendahan ha lagu daro laakiin baarlamaan weynaha uu codayna 10 xildhibaan go'aankooda bas in la iska qaadanayo ma xildhibaanaha saas soo jeediyay xildhibaano inta ogol in taageersan xildhibaanada waxa soo jeediyay gacanta taagtaa leh haday gacanta wax u taagan la waayo oo 10kooda bas ay noqdaan meesha ku dhimana ajendaha sidiisoo ahana haddii gacanta loo taago majority-gii baarlamaanka ha lagu daro iyo ha laga dhimo labadaba waa la qaadana haddii ha laga dhimo ay ahaydna waa laga dhima ha lagu daro hadday ahaydna waa lagu dara uma jeedno xildhibaano baarlamaanka keenay mooshin oo ha lagu daro iyo ha lagu dhimaa ajendihii wuxuu ahay coronavirus xildhibaanaha inta baxay kursigii guddoomiyaha baarlamaanka iyo kii habdhowraha ku fadhiistay waa dembigu marka laba nooc uu noqdaa in guddiga anshaxa loo gudbiyo guddiga xeer hoosaadka loo gudbiyo oo xakun ay soo rogaan iyo in guddoomiyaha go'aan uu qaato
oo anshax mariyo haddii xeer hoosaadka baarlamaanka ee guddiga xeer hoosaadka loo gudbiyo xataa hadday dhahana ha laga qaado xasanadda ha laga qaado waa loo codaynaa hadday majoritiga baarlamaanka ee xasanadda in laga qaado u codeeyaan waa la ceyrina gebigiis baa xildhibaanadii baarlamaanka waynaa haddii lacag lagu ganaaxo oo lacag ay soo sheegaan waa loo codaynaa lacagtaas intaas la eg ayaa xildhibaankiiba lagu ganaaxay waa loo codaynaa tan laakiin guddoomiyaha baarlamaanka coday uma baahno waxaa waaye guddoomiyaha digniin uu bixiyaa wuxuu bixiyaa anshax marin oo maalmo in baarlamaanka ka fadhiisiya waa kala waaweyn yihiin tan guddiga xeer hoosaadka ayaa weyn lacagaa lagu ganaaxaa eedaysanow noqonaa waa loo codaynaa waxaa laleeyahay baarlamaan ma istaahila laga qaada xilka xasanada laga qaado waa loo codaynaa waaweynkaas lama aada nimanka mid jiro oo jeebka oo muxuu ahay guddoomiyaha la eg oo muxuu ahay 5 maalmood 5 fadhi oo baarlamaanka ay ka hadda hal waa ka soo dhaaftay halkalna kan soo socdo waa 5 fadhi ayay ka maqnaanayeen kadib iyagoo xildhibaanadoodii oo ganaaxi u soo dhamaaday caadi ay ku soo noqonayeen marka waa wax baarlamaanka ay isku anshax mariyaan waa ma aha wax dembi gaar ah oo laga galay ma aha wax oo loo gardarooday waayo ninkii guddoonkii baarlamaanka kursigiisii iyo microfonkiisii xeer muxuu ahay habdhowrayaashii kuraastoodii dadkii ku fadhiistay ee yiri annaga stop no more intan looma dhaqaaqay intan looma dhaqaaqay baarlamaan 275 maseerkiisii afduubtay waa dembi waay ana weli waxaan qabaa guddoomiyaha aad ugu naxariistay waa saaxiib ciyaaray waa tahay iyaguna waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaan in lagaga qaldan yahay arrintaasi iyaguna ay saxan yihiin soo dacwoodaan ha soo cadaystaan guddiga xeer hoosaadka u gudbistaan warqad cawasha guddiga xeer hoosaadka u fadhiisanay haddii dembigaas dembi ka weyn ay yeeshaan waa lagu qaadaa haddii kaas kii guddoomiyaha baarlamaanka saxanay la yiraahdana okay haddii guddoomiyaha baarlamaanka uu idinka qaldamay la yiraahdana apologize la siina marka mar walbaba yaan duurka laga qaylin yaan hoteelada laga qaylin baarlamaan waa waxaan waa baarlamaan shuruuc uu leeyahay in la fahmaa muhiim ah baarlamaannimada fiiri baarlamaannimada ma aha in laska jaantaa rogan ay tahay dishibliinaa jira dishibliinka waa in la ilaaliyaa fiiri haddii xataa xildhibaanka uu tirsanayo cadaalad xumo letter oo qoraa guddiga anshaxa u geynaa wuxuu dacweynayaa guddoomiyaha iyagaa loo fadhiisanaa guddi oo dhaarsan oo guddiga baarlamaanka 15 guddi waa guddi ka mid ah ayaa u qaabilsan arrimahaas anshax marinta iyo qofkii laga gardaran yahay in la xaal mariyay iyo qofkii laga gardaran yahay in magdhow la siiyey iyo waxaasoo dhan muxuu ahay guddiya noo qaabilsan marka laakiin si geel duda camal in laska wada ordo oo baarlamaanka hortiisa la joogsado oo mikrofonada la jarjaro waa dishbil xumo camal qof qaaday waa tahay hadda ka hor waxaad soo jeedisay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in la soo xiro bari uu xamar ku sugnaa haddana aaminsanahay in la soo xiro maxaa mar hore maxaad u sababaynaysaa xarigiisa dad badan uu leeyahay maxaa caddeyn ah asaga afkiis ku qoran anoo meyd wata ayaan soo galay anoo meyd wataan la baxay asaga isku qiri aniga inta aan garanayo aniga aan marqaati ka noqon karo oo asaga dili aanan la xisaabi karin waa tahay dowladda federaalka Soomaaliya toddobaadkii aynu ka soo gudubnay waxay soo dhaweysay si diiran waliba ninka la yiraahdo Cabdirashiid Janan oo horay ay uga eedeysay inuu dambiyo dagaal ka galay dalka isla markaana dad rayid ah xasuuqay maxay ku kala duwan yihiin Axmed Madoobe aad sheegtay hadda inuu dambi galay oo ay dowladda fogeynaysay iyo Cabdirashiid Janan oo la soo dhaweynayo horta dowladda dambi ma cafiso dambi waxa cafiyo oo cidii laga galay Cabdirashiid Janan hadduu dambi galay dadkii iska galay iyaga dacweysanay maxkamadii iyo dowladdii iyo soo dhigay falaaga ma aha maanta nin haddii bari maxkamad looga yeero tagaa waay أنا waxaan qabaa Cabdirashiid Janan go'aan geesinimo leh oo qaatay dagaal iyo furin
iyo dal shisheeye asoo dabada gashtay ayuu go-aan ka gaaray inuu dalkiisa burburinin oo soo baxo wixii hore oo hore u dhacay ninkii dacwo u qabo maxkamadaa jirta maxkamadda u taga dowladdiyaa soo dhiibay meel kale ma aadan fallaaga ma aha beri maxkamaddan haddii warqadii ay soo dirtay ugu tagaa laakiin go-aanka uu qaatay iyo soo dhoweynta dowladda ay soo dhoweysay waxaan qabaa waxaa weeye dhab ah oo la xeerin kara inay tahay sababtoo ah ninkan intaasoo tignika oo haystay intaasoo hub oo haystay dal shisheeye oo cadow anahaas dabada gashtay haddii rabbiga subxaanahu watacaala hanuunka leh war waxaad burburinayso waddankan danta ay kaa leeyihiin inay dowladdooda ku siinayeen ama wasiir ay kaa dhigayeen maaha laakiin dalkaaga inaad burburiso waaye haddii intuu ku fikiray go-aan geesalmana uu qaatay dadkiis la dagaalay isu soo dhiibay ana waxaan qabaa go-aan geesalmana uu qaatay mar horeba wuxuu ahaa nin xabsi ka baxsaday hadda ma lays dhihi karaa amase macquul ma tahay in kolley wada anigu ma dhahayo xabsiga dib ha looga celiyo wixii waana hoos socdo qofkii hadda uu dembigiis galay ee iska toobad keenay oo xabsi hantiis galay xataa xabsi uu ka baxsaday muxuu ahaay uu kasoo tooba keeno dowladdiis u soo dhiibay dowladdaasaa jirtaa inay kula xisaabtanto ama shacabkii oo dembiga galay in lagula xisaabtamo laakiin anigu waxaan aaminsanahay go-aan geesimile lahu qaatay waa tahay arrinta hadda muranka ka taagan yahay ee arrimaha doorashooyinkana ku horgudban waxaa qeybka qadiyadda gobolka Gedo oo muran uu ka taagan yahay adigu siday kula muuqataa waa mahadsantahay Gedo horta waa 7 degmo waay 7 degmo waxaan filaa gobolkan kale labadan gobol oo kalena inay yihiin 7 inay yihiin ama 5 dhinaca iyo 7 adig 7 iyo 7 waay 3 degmo oo muxuu ahay jubbada dhexe shabaab ka taliyay 7 degmo oo gadaana gooniyay uu go'een maamulkii Axmed Madoobe oo kama taliyay wiligiisna laguma dhigin waxa uu soo heray waa 5 degmo 5 degmo Kismaayo Axmed Madoobe xurka marka ninka haysta 5 degmo ninkaas talinay niman meel la qabsan oo meel aan dhulka shabaab ka cinin oo afmadow iyo Kismaayo moogay oo Kenyatta ciidankooda ay u joogaan moogay meel kale aan wiligiis tagin Kismaayo hadoo 5 kilomitir ka baxo ay shabaab ay yihiin ma hada ma la dhihi karo Gedo maxay u gooday iyo problemka Gedo maxuu yahay problemka Gedo waxa way cadaalad xumay tirsanay dadka la leeyahay kamidii dadkoodii maalin walba lagu laynaya meesha la yiraahdo Kismaayo dadkii reer Kismaayo ahaa ee reer jubbada hoose ahaa ee dadkaas u dhashay maalin walba laynaya oo meydkooda jidadka yaalayaan bas Axmed laynaya watahay dadkaasi Axmed inuu laayaa waxadeena ma loo haya waxadeyn buuxda loo haya iyo qaaraba video laga dhageysanayo asagoo hanjabay qaara asagoo baad weydiisanay laga soo duubay qaara ciidamadiisa lagu qabtay iyagoo dadkii la yaqaanay ay dilayeen dowladda iyada ayaa u aqoonsatay horay in madaxweyne ka noqdo Jubbaland 2 sano ayuu u aqoonsatay arintaas madaxweynaha waa weydiiyay wuxuu ugu jawaabay intuu falaaga noqon lahaayeen 2 sano uu siiyay 2 sano oo ka faa'iideysan waay 2 sano haduu siiyay hadda muxuu ugu colaadinayaa meesha isagu uu ogolaaday inuu ka taliyo oo gobolka Gedo hadda gobolka Gedo marka 2 sano la siinayo gobolka Gedo ka matalinayna Axmed wiligiis 8 sano Axmed maalintii wax loo dhoobay Tigreeg wax u dhoobeen waxa ka soo wareegtay 8 sano ka soo wareegtay 8 sano wiligiis Gedo ma tagin hal saxaafada tiin gobolka Gala raadiye keena ana inay ugu beenay waatana soo jooga Gedo wiligii Gedo ma tagin marka Gedo wiligiis ma xukumin isaga ku magacaawan laakiin wada aaminsantaa ma magacaawash maxay tiraysaa fiiri haddii muxuu ahay meel siiga magacaawan tahay dadkeeda in isbaa dadka ayahooda ka tishanayeen dadka ayahooda ka tishteen dadka mustaqbalkooda ka tishteen abaarta hadda ku dhacayso waa war uma hayo waad ogtihiin maalin dhaweed waatii wasaaradda gargaarka ay tagaysay marka Gedo iyo Axmed waa isdeeyeen Axmed Gedo waa hanan waay wuuna tigi waay intii roos rabay in isku baabi'iyo Cabdirashiid Janne waa xiradaas waa la soo xiray marka Axmed jaaniskiisa uu qaatay iska baxo
ama hala soo xiro wax ka dhexeeya ma watahay adigu maxaad u aragtaa marka xal oo lagu wajihi karo arrintan ka taagan gobolka Gadow si looga gudbo doorasho lisla ogol yahay oo ay dalkan uga dhacdo haddii bisha Agoosto la gaaro Axmed bisha Agoosto ay u agtahay labadii sano oo madaxweynahan uu siiyay haddii la gaaro oo aan bu'aalan la xoreyn meel kalena aan la xoreyn gada iyada lagu qabanayaa shirka dib u heshiisiinta beelihii Soomaaliyeed ee kala irdhoobay jubbooyinka deganaa odayaashooda meesha iska xaadirinaya madaxweyne ku xigeenkii baarlamaankiina meesha lagu dhisaa Axmed Saayaqaan markaa meesha aada watahay sharciyad ahaan markaan ka hadlayno madaxweynuhu xaq ma u leeyahay inuu magacaabo guddo aan iraahday madaxweyne maamul goboleed inuu magacaabo marka aan ka hadlayno nidaamka federaalka waa la magacaabay Axmed Madoobe Xasan Sheekh aan magacaabay aniga mooshin aan ka keenay sida wax loo muxuu 145 xildhibaana waxaa tiri maya sida wax loo dhisaa waa qalad maalintii codkaas la qaaday wixii ka dambeeyay Axmed Nikliira Xasan Sheekh baxay Axmed u tagay wuxuu yiri sidaan aad madaxweyne ku tahay iska dhaaf baarlamaan warkiis saasoo ku yahay madaxweyne oo doorashadii dhacdaba ma ahayn doorasho sida adigu Axmed wiilgii lama dooran mar gabraa 2 sano sii mar Xasan Sheekh 2 sano sii marna farmaajo hadda 2 sano sii 6 sano saasay ku marwaya hal 2 sano horena xoog ku joogiyo waa tii ciidankiina iyo dagaalada faraha badan la iyo marka Axmed wiilgii lama dooran haddii la aaminsan yahay inaan la dooran ama aad aaminsan tihiin maxaad ugu hadli weyseen xilli hore baba ka hadalnay doorashadii hadda ugu dambeysay beenteed islahay 2 qof iyo keen qofkan rabaan kala baxa hadda farmaajo hadii yiraahdo gawar 2 qof 2 xildhibaan reer walba 2 xildhibaan iyo keen qofkan rabaan kala baxa intaas doorasho ma sax ma aha watahay markaan ka soo laabanaa arrimahaasi si guud xaaladda guud ee dalka iminka uu marayo markaad fiiriso ma u muuqataa in doorasho lagu jihayn karo doorasho lagama huraan waayo dalkan in doorasho la geliyo waxyaabaha kaliya ee dowladaha dariska aan nahay aan ugu dugneen waxaa weeye 4 sano oo doorasho dhacaysay labadii doorasho hadda ugu dambeysay iyo doorashooyinkii 1960 xornimada markaan qaadanay ahayd waxaa weeye inta aan dimuqraadiyadda ahayn labadii sano maray 4 sano doorasho dhacaysay 21 sano Maxamed Siyaad Barre ma ogay inta kale dowladaha Afrika dadka ugu horeeyay ee dimuqraadiyadda oo ololay ayaan ka mid ahay marka ana waxaan qabaa daawo ay u tahay dalkan in doorasho dhacdo oo nin walba deegaan doorashadiisa isku laabto oo doorashadii dadbaneed noqotaa mid toose noqotaa tii odayaasha ay wax soo qorayaan noqotaa in si ay doorasho u dhacdo daawada khilaafka waa taa waxyaabaha khilaafka nagu sii kordhinayo hadda buuqa badan keenayo waxaa weeye doorashada ay dib nooga dhacday sababteedana waa labadaas dowlad goboleed oo aan firi doorasho aan loo dhamay 90 iyo dhowr xildhibaana laga soo doortaa 100 ku dhawaad baarlamaankii 100 xildhibaan ka maqan tahay inta kale ay la soo doorto sax ma noqonayso marka baarlamaan doorasho baarlamaan oo muxuu ahay loo dhan yahay ayaan rabnaa oo dowlad goboleed walba 5 dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir ba ka dhacdo waqooyigana muxuu ahay si gaar ah loo maamuuso marka sidii ay ahaan jirtay fiir doorashada dadban way noo bilaabantahay wada Xasan Xasan Sheekh bilaabay madaxweynihii hore qaab iyo si lagu soo doortay iyo design oo laga qaadan kara ayaa jiray tii odayaasha dhaqanka ay qorayeen odayaashii 135 way joogaan tii doorashadii tooska ahaydna waan qaban karnaa oo haddii maanta waxaan ogahay waddankeena 18 gobol oo ahaa 5 gobol oo waqooyi iyo jubbada dhexe mooga inta kale 6 gobol markii la gooyo 12 gobol xarumahoodii iyo degmooyinkoodii waxaa haysta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka maanta
waxaan aaminsanahay magaalada beledweyne haddii kuraas la dhigo oo xildhibaanadii ka yimid meesha ay tagaan oo la yidhaha dadka shacabka ha doortaan fiilooyin dheerdheeraa la gala xamar sidoo kale baydhabo sidoo kale bakool sidoo kale marka sidoo kale dhuusamareeb sidoo kale gaalkacyo sidoo kale garoowe iyo boosaaso sidoo kale waxaasoo dhan muxuu ahay doorasho waa ka dhici kartaa marka keliya waxaa loo diidan yahay shacabkii inay saduuq meel dhigtaan nimankan dowlad goboleedyada iyaga ruuxooda waxay rabaan wax yaroo iyaga ay maamacbileeyaan ay rabaan iyo xildhibaan iyaga oo u nacamleynahay ayay rabaan saxna maaha waxaas kuwaas kale ee shabaabku ay haystaan iyo gobollada waqooyi ha laga tagay ayaad aaminsantahay ku haltahay daruufaaba jirtaba si gaar ah loo maamuusa laakiin waxaan aaminsanahay meesha hadda la rabo inay muxuu ahay dhowr iyo 20 kun inay codayso la rabo 2 milyan 3 milyan Soomaaliya codayn karto waa hadday daacad jirto honest oo daacad u siiyay shacabka Soomaaliyeedna doorasho xaq ay u leeyihiin war maxamedan 16 kiisa gobolaan doorasho lagu qaban karin waddanka dhan waxaa laga dhigi karaa hal deegaan doorasho kan Kismaayo joogo iyo kan xamar joogo hal sanduuq wax ku wada ridi kara kadib baa xisbiga ku guuleysto hadhow tala tirana adduunyada wadamada burburka soo maray ayaa qaata desaynka noocaas hal deegaan doorasho xamar bas aa codaynayso xamar aa matalaysa dadka xamar jooga maxaa matalaya 17 gobol oo kale waa codaynay 2 milyan oo xamar joogtaa codaynay dhib miya yaa ka fiican 26 kun inay codayso iyo 2 milyan oo xamar joogta inay codayso yaa karaamad iyo sharaf badan oo xisbi ay u codayso xisbigana uu xildhibaanadiisa soo liis garayso horeyso idinka xildhibaanada golaha shacabka soo looma horkeenin nidaam arrintaas waa la horkeenay waxaan ka baqnay in la yiraahdo doorashada diidii ilaa nimankan inay qabtaan ma rabaan intay bixeen ay dhuusmareeb tageen ay doorashada dadban soo qaateen ayadoo sharcigii doorashada tooska ah oo jiro ay doorashada dadban soo qaateen marka haddii aan dhahno maya waxa la dooranayo waa xildhibaanka madaxweynaha ma aha toos wax loo dooranayo xildhibaanada inay sii joogaan ay rabaan in la yiraahdaan ka baqnay shacabkayna iyo dadkayna aan ka xishoonay waa tahay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku sii saqaynaa maxay tahay fariintaada ugu dambeysay ee aad jeedinayso fariintayda ugu dambeysay waxaa weeye hala dhowro dastuurka iyo xeer hoosaadka u degan dalka sharciyada dalka hala dhowro shacabka Soomaaliyeed xuquuq ay leeyihiin awood adag aad maanta leedahay ha ku muquunin dani iyo Axmed Madoobe iyo intii la mid ah yey shacabka Soomaaliyeed ku muquuninin xaq waxay u leeyihiin in doorasho toos aadaan shacabkan qof walba codkiisa madfac u ah in codkiisa dhiibto oo xildhibaan jeesow iyo xildhibaan kale ay ku tartamaan oo haddii xildhibaan jeesow aan shacabka ka gadmaynin ay dhahaan jeesow naga fadhiisa marka taasaa shacabka Soomaaliyeed ay u ooman yihiin xildhibaan aniga aan ma joojisto oo aniga iyo adeecayaan soo saaranaa iyo steerinka gacantayda ka baxay waxaas dad ku fikirto dalkan weligiis hore mar gaari ma dalkan iyo shacabkiisa aqligiyaan looga dheeldheel shacabkan xuquuqda uu leeyahay yaa lagu tuman aniga intaasaan ku soo gaabsanahay wadansan tahay guud ahaan intaas ayaan ku soo meerayaa dawadayaal barnaamijka tixraaca wararka oo si toos ah idinkaga imanayay shashada TV-ga Somali News xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa marti inooga ahaa mahadiya ka gaadhay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow isla markaana su'aalo dhowr ah oo ku qoto xaaladda guud ee dalka uu iminka marayo aanu ka weydiinay guud ahaan waa inaga inta kaamirada barnaamijka waxaa ka saacidayay Cabdifataax Rooble farsamada hagaagsan waa injineer Faysal tan iyo kulan dambe nabadiin thanks hawlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko